rag iyo dumarkaa doontid ahaw jilaaca iska daa jilicsanaantu waxay keentaa in lagugu tunto qalbiga lagaa jabiyo nolosha dhan ciriiri lagu geliyo mugdi lagaaga dhaqaaqo taa ha u ogolaan naftaada qiimaheeda iyo meesha ay joogto mar walba fahan qiimahaaga hoos ha uga soo dhicin jilicsanaan iyo liidasho qofku uusan mudnayna adigu naftaada ha gelinin oo bini'aadamka kale aad kula yaabi lahayd haddaad ku arki lahayd adigu marka waxaad tiraahdaa anigu waxaan u arkaa aan kala harno markaan isu geeyo in aadan wax cad ii sheegaynin anigii dhammaa ee aan isjeclayna aad ii muujinaysid inaad rabtid inaad fasax iga qaadatid sidii shaqo adagood haysay inaan ahaa waxaan markaa intaa isu geeyey ii muuqata in ay tahay aan kala harno oo aad ii qarinaysid saa darteed haddii ay taa adiga kula qurux badnaatay aniga laftigayga waan kugu kaalmaynaya meeshaanan maanta joognay wakhtigan aan taagannahay waxaan u arkaa xiriirkan inaan bartaa iskaga dayno sababtan waxaan kuu leeyahay maxay tahay sababtan kuu leeyahay waxay tahay in aadan booskaa taagan tahay ku jilicsanaanin oo qofku booska uu taagan yahay wuu ku adag yahay wuu ku sarreeyaa wuuna aaminsan yahay fikirkiisa iyo ra'yiga uu wato iyo hadalkiisa adigu ma doonayo inaad dareentid jilicsanaan iyo shaki iyo inaadan naftaada kalsooni buuxda ku qabin qofku wuxuu kula yimid asbuuc fasaxan kala qaadanno adiguna waxaa tiri nolosha inta ka hartayba fasaxan kala qaadanno sax qofkani hadduu si daacada kuu jecel yahay kuuma ogolaan doono inaad tallaabada qaadid markaba wuxuu ku oran doonaa anigu halkaa fog wuxuuma wadine haddaad intaasoo dhanba ka fasirtay waxaanba ina ka badaa aan iskaba ilowno inoo wad sheekada qofkaas markaa waa qof xal doonaya waa qof ku jecel ku raba laakiin waxyaabo ciriiriya uu dareemayo ama dhinaca qoyskooda ha kaga yimaado ama nafsi ahaan ha haysto baa laga yaabaa inay taas ku kaliftay laakiin haddii qofku uu go'aan ku gaaro marka uu ku yiraahdo sidii aan hore kuugu sheegay uunbay ahaanaysaa asbuuca isii baan ku iri haddaad adigu ka fasirtay in aan nolosheen dhansaa isku daynana dhib uma arko hadduu qofku taa ku yiraahdo qofkaasu xaqiiqa kuma jeclaa horeyna waxaa dhici karta inuu kuu jeclaa laakiin isbeddel dambe uu yimid hadda wakhtigan laakiin la taagan waxay tusaysaa qofkaasu in uusan ku jeclayn waxaan ognahay aniga adiguba bini'aadan baan nahay jacayl waa soo aragnay qof waa jeclaanay sax waxaa xaqiiqa ah qalbigu qofka uu jecel yahay kama maarmo go'aan kama qaadan karo go'aan inuu muddo ka maqnaado siduu doono ka yeelo ma dhacayso haddaad aragto qof kugu ciyaaraya oo wakhtigaaga kaa luminaya oo hadalkuu doono ku odhanaya oo ku caayaya oon ku xushmaynayn oo siduu doono kuula dhaqmaya qofkaa marna ficiladiisu kama turjumayan inuu ku jecel yahay dadka qaarkood baa intay caaytamaan waxay yidhahdeen jacayl baa iga keenay intay waxay doonaan qasaan bay yidhahdeen jacayl baa iga keenay haddii dhab ahaan qofku uu kuu jecel yahay waxa uu kugula hadlay kugulama hadleen waxa uu ku yidhi iyo siduu kuu qalbi jebiyey kuuma qalbi jebiyeen bini'aadamku sideedaba guud ahaan soomaalidu waxay tirahdaan isha ku jeceli xumaantaada ma aragto qofku markuu ku jecel yahay xumaan aad leedahoo dhan uma jeedo haddaad aragtid qof xumaantaada raaraadinaya oo raaraadinaya sidii uu kaaga yara fogaan lahaa kaaga durki lahaa